13 November 2017 doorashadii Somaliland sidii ay u qabsoontay ma waxay u dhacday si sax ah sidii ay ku andacoonayaan xisbiga talada haya dadka qaarkood iyo kuwa kamid ah international observers mise waxay ahayd doorasho boob iyo ku shubasho u dhacday sida ay iyaguna qabaan dadka qaarkood iyo mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani koob iyo 20 degmo doorasho ee dalka mid ayaanu cagta u soo dhignay si aan gunta u soo taabano ayaanu u kabaylan maaha waxyaabaha aynu ku beegsanaynaa barnaamijkeena isolated incidents xaalado gaargaar balse guud ahaan waxaan soo taabanaynaa xaqiiqada sax iyo khalad ma dhaba inay jireen waraaqihii codbixinta qaarkood oo habeennimadii doorashada ka baxay gacanta komishanka gobolada oo laga codeeyay goobo fara badan sideese loogu codeeyay ma jirtaa kaadhadhkii doorashada in la duplicate gareeyay sidayse u dhacday qof aan la diiwaan galin oo aan laga qaadin faraha indhaha iyo wejiga midnaba in la diiwaan galiyay kadibna kaadhkiisii codbixinta la siiyay kuna codeeyay maxaase ka jira inay komishanka gacantooda dib uga bixeen qaar kamid ah kaadhadhkii xilligii kaadhadh qaybinta dadkii lahaa u iman waayeen ee dib komishanku ula soo noqday ma dhaba in doorashada horteed xogtii codbixiyuhu komishanka dibadda uga baxday maxaa bedelay qorshihii diiwaangelinta looga gol lahaa ee iriska kaasi oo kala saarayay codbixiyaha sida saxda ah kaarka codbixinta ku qaatay midka aan kaarka lahayn kan sifaha aan sharciga ahayn ku qaatay kaarka codbixiyaha iyo ku sita kaar macmalaba haddii se la bedelay qaabkaasi maxaa komishanku warbaahinta maxalliga ah barnaamijyadii ay ka qabatay ugu cadeeyay in doorashada lagu galayo habkii iriska ee kala saarayay codbixiyaha saxda iyo kan kale iyagoo isbarbar dhigaya baasaboorada dunida lagu galo iyo kaarkaas ina isku sifo marayaan qalabku waa qalabka aanu idin sheegno adduunka meel lagu isticmaalay ma jirto baan idin waa wadankii ugu horeeyay baynu nahay ee isticmaala kan iriska ama buuda indhaha la isticmaalayo waxaanu kaga cararaynaa waxa weeye in aan ayan dib ugu noqon dadku oo aanay noqon wixii la dhici jiray la iska footeen jiray farkii la iska mashii jiray ayan dib dambe u dhicin baan u sameynay waa ogtiin oo dadkiina badan waxaan leeyahay qurba joogtiin anigu markaan ku noqdo ingiriis loo tago baasaboorka aan shito meel baan geliyaa baasaboorka waxaan eegaa indhaha ayaan isaas u eegaa dhag leen casoo gelina soo baxayo oo aqbilayo oranaya waad qaado baasaboorka oo dhaaf bir halkan aad joogto automatic iga furmaysa haddii qofka baasaboorkayga qaato dee way qabanaysaa dhowr arrimood baan hor yiilay oo komishanka hor yiilay oo la kala xushay 3-4 bay ahayn baan u malaynayaa marka kan ayaa la xushay sababta loo xushayna waa maxay inuu yahay mid aan la khiyaameyn karayn inuu yahay sida komishanku ku andacoonayaan oo ah in dadka buuda indhaha laga sawirayay oo doorashada lagu galay nidaamka diiwaangelinta iriska goobaha codbixintana qalab xaqiijineed yaaleen haddii ay sax tahay taasi sidee bay ku dhacday in adigoo jooga tusaale ahaan London ama dalka gudihiisa meel kamid ah isla markaasina aan buuda indhaha iska daaya fartaada la sawiray in sawirkiiyo magacaaga ood ku dirtay WhatsApp ama email lagu sameeyo kaarkaagii codbixinta kadib aad ku codayso cadaymo marag u ah ayaanu adiin haynaa bismillah aniga waxa igu dhacday maalmihii doorashada inaanan kaar qaadan ama aanan jaanis u helin laakiin inaan komishineer oo ka tirsanaa qoladii komishanka ayaa waxa uu sheegay inuu kaarkii sameyn karayo aniga oon tegin goobta laga qaadanayo kaararka wuxuu igu waxaad soo dirtaa sawirkaaga oo WhatsApp ku soo dir anigu waxaan joogay Burco sawirkaygii waan diray maalmo kadib wuxuu sheegay in sawirkayga inuu ii dhameystiran yahay kaarkii oo magacaygii inta dambe uu buuqalday laakiin magacayga hore uu saxay kaarkiina sidii baan ku soo qaatay waana sidii aan ku codeeyay anigoon tabinayso xogaha goob joogayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba shirkadaha waraaqaha ururada aan dawliga ahayn doorka ciidamada kala duwan ee dalku ay ku lahaayeen kulamo kala duwan iyo waraysiyo komishanka iyo su'aal kasto aad xaq hore ku soo sheegnay barnaamijka ayay idinku wada daawan doontaa waxa uu helin doona intaas arrimo la xiriira sababihii shirkadaha isgaarsiintu qadka uga saareen ama u xanibeen adeegsiga social media faraha bulshada yaa sababta tallaabadaasi lahaa komishanku muxuu tallaabadan uga jeeday
beesha caalamku se waraaqihii ay u soo dirtay komishanka doorashooyinka ee ka dhanka ahaa xanibaada social media maxaa looga jawaabay ma doorashadii dalka ka dhacday ayaa bulshada Soomaaliland kala qaybisay oo magacyo iyo waaxyo u kala saaray mise waxay ahayd kala qaybintoodu mid looga gol lahaa in lagu dado ama lagu hoos qarinayo siro halistooda leh oo ay qasab ahayd in lagu tallaabsado si bulshadu u liqdo natiijadii doorashadaasi ka soo baxday waa sidee xaqiiqada dhabta ah ee xisbiga talada haya ku hantiyay hogaaminta dalka sidee wax u dhaceen ahmiyada koowaad ayaanu siinaynaa xaqiijinta waxa runtu tahay annagoo ka madax banaanaysiinana inaanay marlebe barnaamijka baadi goobraad ku yeelan istiidooyinka dhinacyada iyo aragtiyaha cid kastaaba gaarkeeda u aaminsan tahay cidda aan iyagu liqin natiijadaasi oo ah xisbiga wadani waxaa jira dhowaan qoraal dhowr iyo 10 beej ka kooban ay u gudbiyeen madaxweynaha haatan talada haya ee ku soo baxay doorashadaasi iyo gudida doorashooyinka qoraalkaasi oo xambaarsan sababo tiro badan oo xisbigaasi u cuskanayo kalsooni kala laabashada komishanka dhinacyada kale ee asxaabta siyaasaddu lama qabaan aragtida wadani oo iyaanatoodu waa u gaar waa sababaha ay lagaba maarmaanka u tahay in baadi goob banaanka keeno xaqiiqadu waxay tahay